waxaana wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhawo mar kale iyo falanqeyn ku saabsan guud ahaan caalamka. waa 22 bisha January sanadka 2023 qodobada qaybtan aan ku falanqeyn doono waxaa kamid ah maxaa ka jira wararka sheegaya in dawladda Ruushka ay nidaam difaaceedii ay ku xirtay magaalada Moscow iyo dhismayaasha waaweyn ee wasaaradda gaashaandhigga. wararkii ugu dambeeyay arrintaas ayaan falanqeyn doonaa. dalalka gaashaanbuurta NATO oo ku fashilmay inay taageero xooggan ay siiyaan ciidamada dawladda Ukraine. maxaa ka soo baxay kulankii shalay ka dhacay gudaha dalka Jarmalka? maxayse tahay sababta dawladda Ukraine loogu diiday qaar ka mid ah taangiyadii muhiimka ahaa? duqeymaha diyaaradaha kamikaze loo adeegsaday ee lagu bartilmaameedsaday saldhigyada Mareykanka iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqeyn doonaa. soo dhawaada mar kale kadib aragtidaada qodobka ku soo jiitay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay. 24kii saac la soo dhaafay waxaa si weyn loo hadalhayaa wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka inay bilowdo in hanaanka cusub ee nidaam difaaceedka casriga ah lagu xiro dhismaha wasaaradda. nidaam difaaceedkan ama hanaankan loo yaqaano Pantsir waa hanaan difaac oo dhanka cirka ah, waxaana wasaaradda la sheegay inay ku rakibtay dabaqyada dhaadheer ee ku yaala magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka, waxaana dabaqyadaasi qayb ka ah midka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka. qobarada dhanka amniga ee gobolka ayaa aaminsan in hanaanka difaaca ee Pantsir 1 loo yaqaano oo lagu rakibay dabaqyada dhaadheer ee dalkaasi Ruushka in looga hortagayo weerar Ukraine ka imaan karaya ama dalalka gaashaanbuurta NATO oo xiran shaatiga ciidanka dawladda Ukraine. waana cabsi hor leh oo madaxweyne Vladimir Putin iyo saraakiishiisa ay dareemayaan oo ay doonayaan inay ka hortagaan. laakiin dalalka reer galbeedka ayaa dhinaca kale arrintan u dhigay oo waxay leeyihiin Ruushka wuxuu ka baqanayaa awoodda sii kordhaysay ciidanka dawladda Ukraine, taa oo micnaheedu ay tahay inay ku taageerayaan noocyada kala duwan ee hubka ee bartilmaameedsan kara gudaha dalka Ruushka. muuqaalada kale ee la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya nidaam difaaceedkan oo la dhigay hareeraha goobaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. xukuumadda Ruushkana waxay ka gaabsatay in arrintan faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan, laakiin waxaa muuqanaysa in Ruushka uu isku diyaarinayo iska difaacidda suuragalnimada weerar kaga yimaada wadamada gobolka. markii sawirada habka gantaalka difaaca lagu arkay saqafka sare ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa mas'uuliyiinta dawladda Ruushka arrintan wax laga weydiiyay. dhismayaasha dhaadheer ee lagu xiray nidaam difaaceedkan ayaa qaarkood 2 kiiloomitir u jira magaalada Moscow, waxaana ay kaga beegan yihiin dhanka bari. waxaa muuqanaysa in hubkani lidka diyaaradaha ah tan iyo shalay lagu arkay dusha sare ee dhismaha wasaaradda gaashaandhigga oo caasimadda ah, sida wakaaladaha wararka ee reer galbeedka ay baahinayaan. afhayeenka madaxtooyada dawladda Ruushka Dmitry Peskov ayaa mar wax laga weydiiyay Ruushka inuu ka walaacsan yahay in Moscow ay noqon karto bartilmaameed. waxa uu yiri waxay mas'uul ka yihiin xaqiijinta ammaanka dalka guud ahaaneed iyo gaar ahaan caasimadda. sidaas daraadeed waxa wanaagsan in su'aalahani la weydiiyo wasaaradda gaashaandhigga. tallaabooyinka dhammaan ay qaadayna iyada ayaa ka jawaabi doonta, ayuu yiri Peskov. wasaaradda si degdeg ah kagama ayna jawaabin xiriiro ay la sameeyeen wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP iyo kuwa kale. nidaam difaaceedka Pantsir waa habka difaaca hawada ee loogu talagalay inuu ka ilaaliyo hubka kala duwan ay ku jiraan diyaaradaha, gantaalada balaastiga ah iyo kuwa kale ee cruise-ka loo yaqaano. warbaahinta madaxa bannaan ee ku hadasha afka Ruushka ee ku taala gudaha dalkaas ayaa baahinaysa in nidaamkan sidoo kale lagu rakibay guriga madaxweyne Vladimir Putin oo ku yaala magaalada Novoogoryova la yiraahdo oo ka baxsan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Ukraine iyo dalalka kale ee reer galbeedkana si weyn ayay arrintan warbaahinta ay ugu hadalhayaan, iyaga oo ka dhigaya fariin ah in Ruushka uu baqanayo. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah. markaan aynu eegno Mareykanka iyo saaxiibadiisa waxaa muuqanaysa in ay ku fashilmeen inay isku raacaan in noocyada kala duwan ee taangiyada Jarmalka uu soo saaray lagu wareejiyay ciidanka dawladda Ukraine si ay ula dagaalamaan kuwa Ruushka ah. sababta arrintaasi looga gaabsadayna waxaa lagu tilmaamay inay tahay suuragalnimada khatar kale oo wadamada qaaradda Yurub ay wajihi karaan haddii hubkani la geeyo gudaha dalka Ukraine. gaashaanbuurta NATO iyo sidoo kale hogaamiyaasha dhanka difaaca ee ka socda 50 dawladood ayaa ku kulmay saldhigga Ramstein la yiraahdo oo ku yaala gudaha dalka Jarmalka, kaas oo Mareykanka uu leeyahay maalintii shalay. waxaana wararku ay sheegayaan in looga hadlayay ugu dambeyn ballanqaadyadii loo fuliyay ciidanka dawladda Ukraine sidii loogu wareejin lahaa, maadaama Ukraine dagaal adag uu ka soconayo muddo 11 bilood ah. hogaamiyaasha ka soconaya midowga Yurub ayaa kulankan sidoo kale yeeshay, waxaana ay kaga hadleen taageerada Jarmalka uu ballan qaaday iyo in la siiyo ciidamada Ukraine gantaalada Leopard loo yaqaano. laakiin tan waxaa muuqanaysa in gabi ahaanba lagu fashilmay oo la isku raaci waayay taangiyadan in la gaarsiiyo ciidanka dawladda Ukraine.
waxyaabaha la isku fahmi waayna waxaa ka mid ah dalka ku horumaraya in taangiyadiisa uu bixiyo iyo halka la marsiinayo iyada oo dalalka gaashaanbuurta naata haddii hubkan ay geeyaan gudaha dalka Ukraine dagaalka dhinaca kale uu weecanayo. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Jarmalka ayaa waxa uu ka gaabsaday in xukuumadda Berlin ay ka hortimid hubkani in la gaarsiiyo dalkaasi Ukraine, laakiin waxa uu sheegay xukuumaddiisa diyaar inay u tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay caqabadahan ay kaga hortagto, balse wuxuu cadeeyay inay jiraan caqabado ka dhex jira isbahaysiga oo doonaya inay taageeraan ciidanka dowladda Ukraine dhinaca kalena aanan doonin. cadaadis weyn ayaa jira oo la saarayo xukuumadda Berlin taasoo ku aadan inay taangiyadan ay siiso dowladda Ukraine, laakiin dhinaca kale marka la eego dowlad kasta waa ay gaabsanaysaa oo waxay ka gaabsanaysaa inay hubkeeda marka hore u noqdo kan ugu horeeya ee la geeyo gudaha dalka Ukraine si cadaawadda aanay u sii ballaaran. taangigan loo yaqaan Challenger 2 ayaa sidoo kale hore loo ballan qaaday oo dowladda Britain ayaa ballan qaaday inkastoo aanay gaarsiinin. Mareykanka nidaam difaaceedka loo yaqaan Patriot ayuu ballan qaaday laakiin marsiya ayuu la yimid oo waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay 90 ruux iyo muddo 6 bilood ah oo askartaasi lagu baro sidii nidaam difaaceedka loo isticmaali lahaa. sidoo kale dowladda Mareykanka waxay hore u ballan qaaday taangiyo kale inkastoo hub hore loo ballan qaaday oo Mareykanka uu ballan qaaday la gaarsiiyay gudaha dalka Ukraine. shirkii maalintii shalay ka dhacay gudaha dalka Jarmalka waxaa muuqanaysa gabi ahaanba in lagu kala tagay laguna fashilmay in taangiyada Leopard la gaarsiiyo ciidanka dowladdaasi Ukraine. maxay kula tahay adiga? qaybta hoos aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay. qaraxyo kala duwan oo diyaarada drones loo adeegsaday ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dhanka koonfureed ee dalka Syria. mid ka mid ah waxaa la sheegay qaraxyadaasi inay suuragal ay noqotay sidoo kalena lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciidamada Mareykanka. taliska ciidamada dhexe ee dowladda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in 1000 askari oo kaga sugan wadamada bariga dhexe dhibaatooyin ay la kulmayaan, waxaana jira dalabaad ka imaanaya xukuumadda Dimashq oo ku aadan in askartaasi laga saaro gudaha dalkaasi Syria. xarunta CENTCOM ee taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 3 diyaaradood oo drones nooca kamikaze loo yaqaan maalintii shalay lagu weeraray saldhigga Al-Tanaf iyo saldhigyo kale oo ku yaala gudaha dalka Syria, laakiin lama sheegin khasaaraha. laba ka mid ah diyaaradahaasi waa la soo riday, laakiin mid ka mid ah ayaa dhismaha ku dhacay waxaana uu sababay dhaawac soo gaaray laba ka mid ah ciidanka dowladda Syria iyo ciidanka Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Syria ayaa lagu yeeray warbixinta. ma muuqanaysa faahfaahin kale oo dheeraad ah, laakiin Mareykanka ayaa u muuqanaya inuu la kulmayo diyaaradaha kamikaze oo la rumaysan yahay inay yihiin kuwo Iran ay soo saaraan diyaaradaha soo wacdara ka dhigay dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine. dhinaca kalena Mareykanka ayaa waxa uu tala u soo jeedinayaa dowladda Ukraine taasoo ku aadan in ciidankeeda ay isaga baxaan magaalada Bakhmut. magaaladan toddobaadka soo socda ciidanka Ruushka ayaa laga baqayaa gacanta inay ku dhigaan meel ku sii qoro. magaalada Solidar maadaama awood ay ku dardareen ciidankii joogay Bakhmutna sidaas oo kale waxay doonayaan inay awood u adeegsadaan. magaaladan waxay ka tirsan tahay gobolka Donetsk la yiraahdo oo jamhuuriyadda Donetsk ayay hoos tagtaa, Ruushkana waa aqoonsaday. waxaana la sheegay sababta ciidamada Ukraine Bakhmut ay kaga soo baxayaan in Mareykanka uu ku tilmaamayo inay isku diyaarinayaan dagaal kale oo wadajir ah oo ka dhan ah Ruushka kana dhacaya dhanka koonfureed ee dalkaasi Ukraine. xukuumadda Kiev ayaa sii kordhinaysa diirad saaritaankeeda ku aadan in magaaladan ay kusii sugnaadaan, laakiin waxaa laga baqayaa waxyeello weyn inay kala kulmaan ciidanka dowladda Ruushka. Mareykanka ayaa hadda kula talinaya ciidamada Ukraine inay isaga baxaan magaaladan, qalabkooda ay ka qaataan, dibna isugu diyaariyaan howlgal kale oo toos ah oo ay ku qaadayaan magaalooyinka dhacdhanka koonfureed ee dalkaasi Ukraine. mas-uuliyiinta si toos ah uma aanay sheegin, laakiin wararka soo baxay waxay sheegayaan in taliyihii sirdoonka Mareykanka ee tagay ee magaalada Kiev warkan uu ku dhibciyay dhegta madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky. maxay kula tahay adiga? qaybta hoos aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay. falanqayntii qaybtan guud ahaan waa naga intaa. falanqaynta lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo.